إلهي بأوحي إنه إلى هدين ودي بقولنا قلنا آيات داس سقالية طبعا عن إله ذو طبعاً تضبع أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إلهي وحي نفرج إنه سوى بندقي مياني دتكو إيجي نبا إلهي وأودي سلاياب كبدنه جيلا يسد الله أبوري سموينكي وينائي بورها إيه دولك إيه الرماها سياد بين نقوم وقرنيا لكن جيلا وينه هايسنا وأنا لقى بين الآد وفير سنين مركا إيش إنه إلهي وتشهدني سبحانه وتعالى جيلو inagu waynu naqaanaa dadka qaarkood baa laga yaabaa inaan geela aqoon oo ummadaha qaarkood tawaaba kuweyn Australia maxaa lagu sameeyay geela waa kii Soomaalidu ka xanaaqay waa la laayayba nicmo Ilaahayba uma garanine manay eegina de waa kuwii diyaaradaha ku duqeeyay laayay laakiin inagu waynu naqaanaa nicmooyinka Ilaahay adoomaha siiyana waa kamid waa dhaqanaa sidaa daraadeed inaynu hoos u eegnaa waa muhiim Ilaahay baa wuxuu farayaa awoodiisa inaynu kala xaragno la yaabka badan geelu marka la eego dhinacyada loo eegayo wax culimadu leeyihiin waxa u badan si awoodda Ilaahay loo arko habku Ilaahay waa buuran la yaabka badan midalan indhihiisu waxa ay leeyihiin xoob ka hooseeyo ka celinaya waxaan la yiraahdo rimaalka waxa la yiraahdo safiinatu sahara waxaad moodaa inuu Ilaahay ugu tala galay meelaha xoolaha kale aanay xamilayn meesha had iyo jeer boor kale ee bataaxa ee saharaha ayaa had iyo jeer Ilaahay ugu tala galay inuu kula noolaan karo dadkana ku afici karo marka indhihiisu waxa ay leeyihiin xiribahan ka soo xuubab ka hooseeyo ka difaacaya dabaylaha saxraaga ka soo dhacaya waxa Ilaahay uu sameeyay weynayso iyo yarayso labadaba xayawaanada kale uu kaga duwan yahay meel dheer marka uu wax ka eegayana wuxuu leeyahay dhawayso ayuu leeyahay meel dhow markuu wax ka eegayana wuxuu leeyahay weynayso oo shayga fogna taqriiban indhuhu ugu sameeyay Ilaahay wuu soo dhaweynaya waxaan dhowna waa u weynaynaya saadaradeed ayaa bani aadamkeenan Ilaahay siyaabo inagu sakhray waxa kamida qofkan hogaaminaya uu la weynaanaya tara ilma yar baa awrkii hogaaminaya ilmaha yar haduu sida uu yahay awrku arki lahaa cagtu ku dhufan lahaa laakiin wuxuu u eegaanayaa ilmaha yar weynaysadii baa shaqaynayso mid isaga laag uu ka xishoonayaa markaa labadiisa dhagood way yaryarihiin laakiin cajaa'ibkooda waxa kamid ah gas badan bay leeyihiin gaskaasi Ilaahay wuxuu kaga ilaalinayaa dabaylaha saxaraaga ka soo dhacaya sidoo kale labadiisan dul way ka duwan xayawaanada kale dulalkooda oo gas badanna way leeyna ma aan idhaahna timo badan sida debnahana way isugu dhagaan si oo sababadiisa aanay u gaarin qubaarka iyo boorka badan ee saxaraaga ka soo dhacaya sidoo kale waxa uu leeyahay dabadiisa adiga arkay oo timaadu badan bay ayay leeyihiin dabadaas aad ka u shaqeynaysa iyaduna waxa ay ka ilaalinaysaa qaybta khalfiga ah ee dambe boorka iyo saxaraaga qururuxa ka soo dhacaya inaanay qaybta dambe ka dhibaateyn qawaa'im tawiila buu leeyahay geelu aga dheer weyn arag waxyaabay ka faa'iideeyeen waxa kamid ah inuu kor uga kaco kulaylka dhulka iyo saxaraaga iyo boorkiisa socodkana ay ka saacidi karto qof cagaaban iyo nin lagu dheeri ma isku mid baa ninba ninku ka luga dheer uu de ka talaabo dheer marka ari raafiyare iyo looda iyo degeelu waa ka talaabo dheer marka socodkii dheeraana uu ka saacidaysa lugta dheeri kulaylkii dhulka iyo saxaraagana kor bay uga qaadaysa waxyaabaha Ilaahay uu ku arsaaqay waxa kamid ah wasaa'id barkimooyin buu sameeyay barkimadaasi waxay u sahlaysaa inuu boorka iyo dhex socon karo si fiican u socon karo iyo waxaan la yiraahdaa bataax imaka shayga qoobka leh bal waxaad ka haysaa meeshan bataaxa ah ee burciida intee leeg ba qoobleedu ay socon kartaa aad bay ugu dhibadantay laakiin cagta ballaaran ee barkimada adag leh Ilaahay wuxuu ugu sameeyay si meesha burciida bataaxa oo waqti dheer u socon karo u sahlanaan karto waxa uu leeyahay qoor dheer waxyaabo badan bay ka saacidaysaa inuu meel dheer wax ka cuni karo geed buu ku nool yahay geedkiisa uu tiigsan karo iyo inuu hinqan karo hinqashada laftigeeda jug u oranaya uu kacayo sangar bay u tahayoo iyadana qoorta dheer way ka saacidaysaa iyo inuu wax culus xambaaraba waxyaabaha Ilaahay
ku saacideeday ka mid tahay markuu wax cabayo deynabay leedahay dhuuntiisaa dheere ilaan intee oo mitir buu u jiraa biyihii madakhuu leeyahay wax biyaha ku soo bamgaraynayo ilaahay u sahlay wey subxaana wa tacaala afka kama neefsada sida dee ayga iyo xayawaanada qaarkoodoo dee xoolaha qaarkood odaga arkayo way haraariyoodaanoo afka isagoo afkiisaasu isku haynaya ee kama neefsanayo si uu maaragtay u xejisan karo biyihiisa calaq ama dhidid badani kama yimaado si uu kulaylkana ugu samri karo isla markaana biyihiisa u ilaashan karo waxaa ilaahay uu siiyey kayd uu kuruska ku wato oo konton kilograma oo marka arrinku adkaado biyay u noqonayaan halkii biyaha ay u gelayaan sidaa daraaddeed ayaa u adkaysanayaa gaajada iyo haraadka bil iyo bar buu adkaysan karaa gaajadana hal bil buu adkaysan karaa kaydkiisaa wuu wadayaa ilaa 2 kiilo uu gaadhayo 50 kiilo intuu ka yimaado hadduu fuuqbax ku dhaco biyaha jidhkiisu ay ka baxaan 40% ilaa hadda adkaysin buu leeyahay halka qofka bani aadamkaa biyaha jidhkeenna ku jira haddii 12% ay kaa baxaan aad dhimanayso oo aad fuuqbaxayso wuxuu qaadi karaa 200 oo kiilo ilaa 300 oo kiilo waa imse gadbadood dee waa 6 gadbadood ama 4 gadbadood ama 5 gadbadood oo raashina buu qaadi karaa isagoo maalintii socon kara 60 kiiloomitir 10 saacadood saacadiiba 6 kiiloomitir buu jarayaa ilaahay wuxuu ku arsaaqay oo uu naga siiyay caano aad u la yaab badan oo gaari kara 5 litir ilaa 10 litir laba jeer marka la liso sanadkii ku dhufo intee oo litir oo caanaaba laga helaya waa nicmo aad u weyn oo aynu naqaano tastaxiqu shukr mudan in ilaahay loogu mahadnaqo subxaana wa tacaala aan lagu kibrin geeljiro kibirkaa ku badana kibirka ka daabu ilaahay leeyahay oo nicmadan anaa ku siiyo waxaasoo dhan ku diyaariye afka ha taagine adduun aad leedahay oo adigu aad samaysatay maaha ilaahay ugu mahadnaq iyo in sakada laga bixiyaana waa waajib qiimadiisa ka mid tahay inuu ilaahay ku saleeyay waxa u qaalisana dhiigga bani aadamka si looga samro magtiisa magti asalkeedu waa in geel lagu bixiyo haddii geel la waayun baa la odhanayaa wixii gooyaana waa geel ma lacag loo guuraya ama lo loo guuraya ama ari loo guuraya laakiin rag iyo dumarba quri iyo qoomba qiimaha uu leeyahay ilaahay geel buu ku saljaray halkaa waxaad moodaa geel jire caawan isla fagadh yidhi oo loo jirkii yaadhi jirkii uu faani doonee inagu dhinaca laga eegayaa waxa way ku cibro qaado cadiyada ilaahay ku siiye kuna mahadna Allah subhanahu wa ta'ala